salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada war wixii dalkiiyo daafaha caalamka naga soo gaaray ciidamada etoobiya uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa 40 weerar oo dhanka cirka ku qaaday gobolka Tigray tan iyo bishii Oktoobar waxaana ku dhintay duqeyntaasi ugu yaraan 143 qof 213 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka UN-ka sidoo kale ilo diblomaasiyiin ayaa sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalab kale oo laga soo iibiyey Imaaraadka Carabta iyo Turkiga loo adeegsaday duqeymahaasi. Getachew Reda ayaa beesha caalamka ku eedeeyay inay ka aamusan yihiin duqeymaha droneska ee shacabkooda lala beegsanayo iyo caruurta Tigreega oo uu sheegay inay gaajo darteed ugu dhimanayaan kadib markii la go'doomiyey. madaxweynaha deegaanka Axmaarada Dr. Yilkal Kafele ayaa sheegay in TPLF ay khatar ku tahay jiritaanka dalka mar walbana ay tahay in lala dagaalamo waa siduu hadal ku dhigee. Dr. Yilkal waxa uu dhambaalkiisa ku yidhi dhammaan shacabkeenna nafhurista ay u galeen sidii ay u badbaadin lahaayeen Ethiopia waxay suurtagelisay in dib loo celiyo kuwii ku soo duulay oo uu la jeedo ciidamada TPLF. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dameke Mekonnen ayaa sheegay in la isku dayay sidii loo gudbi lahaa cadaadiskii diblomaasiyadeed ee Ethiopia saarnaa sanadkani. Waxa uu sheegay in lagu dadaalay sidii loo ilaalin lahaa danta qaranka Ethiopia iyadoo loo marayo diblomaasiyad caalami ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in howlihii ay qurbo joogta gudaha iyo dibaddaba ay hore u qabteen ee ahaa in xaqiiqda Ethiopia la gaadhsiiyo caalamka ay abuurtay karti weyn. Isagoo hadalkiisa sii wata Dameke Mekonnen ayuu sheegay inay dowladda isku dayeen inay Ethiopia marin habaabiyaan arrintaasina ay salka ku hayso biyo-xidheenka webiga Nile. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa 6da bishan ee Janaayo booqasho ku imaan doona Ethiopia wuxuuna kulamo la yeelan doonaa madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Ethiopia wuxuuna kala hadli doonaa sidii colaadda ka socota waqooyiga Ethiopia xal nabadeed looga soo afjari lahaa. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa xalay ka digay caasimadda Eritrea Asmara. Wang oo booqasho 2 maalin ah ku joogi doona magaalada Asmara ayaa wada hadallo muhiim ah la yeelan doona madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki iyo madaxda kale ee dalkaasi. Xiriirka labada dal ee iskaashiga geeska iyo xaaladda gobolka ka taagan ayaa la warinayaa inay si weyn isula gorfayn doonaan Shiinaha iyo Eritrea. Booqashada dalka Eritrea kadib Wang Yi wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u sii kicitamaya wadamada Kenya iyo Comoros iminkana Soomaaliya. Wararkii u dambeeyay shirka Muqdisho oo galay maalintii 3aad magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa weli ka socda shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo duqa Muqdisho kaas oo galay maalintii 3aad oo xiriir ah. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlayaa xaaladda cakiran ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka waxaana maanta ku biiray bulshada rayidka iyo haweenka. Qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah shirkan looga dhageystay talooyinkooda ku aadan doorashada dalka. Sidoo kale haweenka ayaa iyaguna golaha wadatashiga qaran u gudbiyey inay muhiim tahay ilaalinta qoondada haweenka 30% baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Golaha wadatashiga qaran ee hogaaminaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay wakiilada ka socda bulshada rayidka iyo haweenka Soomaaliyeed oo ay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoo ka dhageystay talooyinkooda ku aadan hufnaanta doorashada iyo xaqiijinta qoondada haweenka ee golaha shacabka ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble. Wadatashiga socda ayaa ah mid ballaaran waxaana shalay ku biiray xubnaha wakiilada beesha caalamka oo lagala hadlay taageeridooda ku aadan doorashooyinka. Waxaa kale oo shirkan ka qayb galay xubnaha musharaxiinta mucaaradka oo miiska soo saaray tabashadooda sidoo kalena soo bandhigay sidii loo sixi karo qaladaadka doorashada. Si kastaba shirka u dhexeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo looga baahnaa isla markaana ay taagan tahay xiisad u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. Qodob xasaasi ah oo la isku mari la'yahay shirkani Roble iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirka golaha wadatashiga qaran ayaa lagu wadaa in maanta uu gala maalintii 3aad iyadoo uu hor yaalo qodob ay adag tahay in heshiis laga gaaro oo la xiriira amniga. Qodobkan ayaa ah
in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu doonayo in shirka uu isku raaco in amniga dalka si buuxda looga soo wareejiyo. Haddii aanay taasi dhicinna aanay dalka doorasho hufnaan ka dhici karin. Ra-iisul wasaare Roble ayaa arrintaani marnaba qorshaha ugu jirin, hase yeeshee wuxuu yimid kadib markii la isku dayay afgembigii fashilmay 27kii Diseembar lagu qabsan lahaa xafiiskiisa, taasi oo uu ku qeexay afgembi kuna eedeeyay madaxweyne Farmaajo. Mid ka mid ah doodaha ugu culus ee maalmahan miiska saaran waa in ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble lagu wareejiyo amniga dalka, sida uu dhigayo qodobka 9aad xarafkiisa ba ee dastuurka Soomaaliya. Madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida. 11 bilood ayaa laga joogaa markii muddo xileedkiisu sharciga u dhammaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna muddadaasi dalka wajahay xiisado kala duwan. Inkastoo uusan jirin qodob dastuuri ah oo sheegaya cidda lagu wareejinayo amniga haddii madaxweynaha waqtiga ka dhammaado, haddana waxaa jira soo jeedin xooggeeda ka imaanaysa xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, kuwaasi oo Roble ku cadaadinaya inuu dalbado in amniga dalka lagu wareejiyo. Farmaajo iyo Roble hadda way isku dhacsan yihiin. Dhowaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku amray ciidanka inay isaga ka amar qaataan soo jeedintaasi, iyo qodobka 9aad xarafkiisa ba ee dastuurka Soomaaliya iskama waafaqi karaan. Labada nin hadda xaalkooda waa kacsan yahay. Haddaba dooda dhinacyada qaar ee ah Farmaajo in amniga laga wareejiyo ee Roble loo dhiibo waxaa ka hor imaanaysa dooda ah laba nin oo dariirsan amniga ma isku wareejin karaan. Sidee Farmaajo looga qancin karaa nin aad dagaashan tihiin amniga ku wareeji? Haddii aad adiga isaga aamini weyso, sidee asigu kugu aaminayaa? Iyo dood kale oo maangal ah ayaa ku horgudban codsiga sheegaya in Farmaajo amniga ku wareejiyo Roble. Inkastoo Farmaajo dhowr jeer qaaday tallaabooyin militari oo si weyn u dhaawacay dowladnimada Soomaaliya iyo shakhsiyadiisa, haddana waxaa muuqata in qodobka amniga wareejinta uu wax walba ka culus yahay. Labada nin, Farmaajo iyo Roble, labadaba ciidamo ayaa hadda ugu jira gudaha xarumahooda. Wax aaminaad ah oo dhexdooda ah ma jirta hadda. Laba nin oo sidaasi ah amni ma isku wareejin karaan? Ee gacan saddexaad ma la heli karaa ayay dad badan isweydiinayaan. Amisom ayaa joogta Soomaaliya, taasoo ilaa sanadkii 2007 waaridiyo xooggan ka ahayd dowladnimada Soomaaliya. Haddii ay dhinacyadu is aamini waayaan, Amisom waxay noqon kartaa dooq furan, ayay talooyinka qaar sheegayaan. Laakiin dhanka kooxda Farmaajo uma badna inay aqbalaan inay ka tanaasulaan amarsiinta ciidanka. Sharciyaqaanada qaar waxay leeyihiin markii madaxweynaha la doorto, waxa ugu horreeya ee lagu wareejiyo waa amniga dalka. Sidaasi darteedna Farmaajo waxa ugu horreeya ee uu ku wareejin doono qofka bedelayo waa amniga, wuxuuna ku qasban yahay in uu sugo ilaa dhammaadka doorashada. Muqdisho hadda waxaa ka socda shir u dhexeeya 5 maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaare Roble, waxaana lagu cadaadinayaa inuu qodobka amniga ka dhigo ajandayaasha kulanka. Laakiin waxaa la fahamsan yahay inaysan maamulada qaar diyaar u ahayn in arrintaasi laga dhigo ajandaha quseeya golaha. Kol hore Farmaajo wuxuu amniga doorashada ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha, laakiin ma wareejinin amniga dalka. Roblena waxaa u bannaan inuu dhiso ciidan si gaar ah u suga amniga doorashada oo uu ka dhex samaysto ciidamada uuna u magacaabo taliya, maadaama isaga uu u madax bannaan yahay amniga doorashada. Wadamada reer galbeedka ee cadaadis ka badan saaraya maamulada iyo miradhalka shirka wadatashiga qaran waxay xoojinayaan inaan wax badan laga bedelin qodobka kala wareejinta amniga, maadaama kaasi uu noqon karo qodob adag oo dib u dhigi kara guud ahaan doorashada. Mucaaradka qaar waxay leeyihiin dalkan doorasho kama dhici karto inta uu Farmaajo haysto hoggaanka ciidanka, lamana yaqaano sida la isku waafajin karo dooda mucaaradka iyo qodobka ku horgudban cidda ammaanka dalka mas'uulka ka ah ilaa laga doorto madaxweyne cusub. Somaliland, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga Somaliland Xirsi Cali Xaaji ayaa maanta looga yeeray xarunta dimi-baarista ee CID-da ee Hargeysa, isaga oo marka uu tagay su'aalo dheeraad ah lagu weydiiyey halkaasi. Xirsi Cali waxaa la socday mar uu tagay xarunta dimi-baarista musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo xildhibaan Barkad Batuun. Wararka ayaa sheegaya in gudoomiyaha su'aalo laga weydiiyey shirkii jaraa'id uu dhowaan qabtay, kaasi oo uu ka eedeeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Arrinta ugu weyn ee Xirsi Cali Xaaji loo haysta ayaa ah
hadalkii uu sheegay ee ahaa in Muuse Biixi Cabdi uu haysto baasaboorka dalka Djibouti. Ilaa iyo hadda saraakiisha Somaliland iyo xukuumadda kama hadlin arrintani iyo eedeymaha loo jeedinayo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Dhinaca kale, mas'uuliyiinta xisbiga oo ka hadlay dhacdadani ayaa eedeyn u jeediyey xukuumadda, waxayna ku sheegeen inay waddo caburin dhanka siyaasiyiinta kasoo horjeeda. Arrintan ayaa sidoo kale dhalisay hadal hayn, waxaana sidoo kale magaalada Hargeysa isugu soo baxay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga wadani ee ka dhisan Somaliland. Si kastaba, Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa bishii November ee sanadkii dhammaaday ee 2021 loo doortay guddoomiyaha xisbiga wadani oo uu loolan kala dhexeeyo xisbiga kulmiye iyo xisbiga